waxaana wanaagsan gebi ahaantiin daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda haadaan oo kale ka daawataan channelka Gobson TV qodobada ugu doorka roon aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya fil Soomaaliya oo uu afduub ka bilowday xilli qofkii labaad lagu afduubtay muddo 24 saac gudaheeda ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo goordhow furay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka labadiisa aqal lafta gareen oo magacaabay wasiir cusub kadib dilkii wasiir Lugbuur Amnesty oo 10 qodob ka dalbatay xasan sheekh maxamuud adaba maxay yihiin 10kaasi qodob ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena xabad joojin la kala dhaxdhigay beelihii ku dagaalamayay deegaano kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaanu guda gelin faahfaahinta qodobadaasi daawade waxa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weeliya baraha bulshada mar waliba daawade waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan annagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqada ee ka dambeysa waa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha 11aad ee November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ee ka faahfaahsan waxaa goordhoweyd xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ka furmay kala fadhiga labaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana munaasabada furitaanka kala fadhiga labaad goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud gudoomiyaasha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaasha golaha wakiilada ee dawlad goboleedyada iyo marti sharaf kale munaasabada furitaanka waxaa khudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi isagoo sheegay in maanta dalka aysan kala cadeyn awoodaha laamaha dawladda federaalka lagamana ee maarmaan ay tahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurkana lagu qeexo sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dalka uu yeesho maxkamad dastuuri ah si xal loogu helo khilaafka soo laalaabta sidoo kalena uu muhiim yahay in labada golo ee baarlamaanku ay meel mariyaan daadejinta maqaamka caasimadda gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa xukuumadda ugu baaqay inay si degdeg ah u soo gudbiso xubnaha guddiga dib u eegista dastuurka si shaqada ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ay u bilaabato ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyay kulanka ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka sida amniga arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha intaba madaxweynaha waxa uu sheegay in markii uu xilka la wareegay uu la kowsaday laba arrimood oo kala ah abaaraha iyo dagaalka ee ka dhanaa kooxda al-shabaab isla markaana uu qaaday tallaabo oo u arkay inay muhiim u tahay ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh ayaa sheegay in 6 bilood ee la soo dhaafay uu tagay qaar ka mid ah dalalka caalamka si loo xoojiyo xiriirkooda sidoo kalena ay taageero uga geystaan dagaalka ee lagula jiro kooxda al-shabaab dhanka kaleetana waxaa maanta xabad joojin la kala dhaxdhigay labadii maleeshiya beeleed ee dhawaan dagaalka xoogana uu ku dhaxmaray deegaano hoostaga degmada Cadalle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe inta uu socday dagaalkan ayaa dhinacyadu ay iska dileen ku dhawaad 30 ruux iyadoo sidoo kale la gubay guryo ee ku yaala deegaanadii ee lagu dagaalamay oo kamid ah gobolka ee Shabeellada Dhexe odayaal dhaqameed oo uu horkacayay imaamka ee beesha Mudlood Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar iyo saraakiil ciidan ayaa la kulmay waxgaradka beelaha ku dagaalamayay deegaanada Geelgub Xaaji Cali El Muluq iyo labada garas ee gobolka Shabeellada Dhexe imaamka beesha Mudlood Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar ayaa dhinacyada ee ka dalbaday inay xabadda la joojiyo inta la isaga imaanayo kulan weyne ah kaasi oo si guud dib u heshiisiin loogu sameynayo labadan beelood isla markaana ciidamada la kala qaado
nabadoon cali cabdulaahi bood ayaa sheegay in dhinacyadu ay qaateen go'aankii xabad joojinta ahaa oo ay soo hordhigeen sidoo kalena ee la kala qaaday labadii maleeshiya beeleed ee dagaalamay isla markaana la isku afgartay in la joojiyo xabadda in la kala qaado ee ciidamada labada dhinac ee dagaalamay in la qabto shir lagu heshiisiinayo labada beelood ee dagaalamay dagaalada ee ka dhacay deegaanada hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ah kuwa soo laalaabtay iyadoo dhowr jeer ee heshiis ee la kala dhex dhigay uu soo fashilmay dhanka kaleetana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa magacaabay wasiir cusub kadib wareegta maanta ka soo baxday xafiiskiisa Laftigareen ayaa xilka wasiirka cadaaladda oo banaana u magacaabay Xasan Cabduqaadir Maxamed ee kadib la tashiyo uu waday maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa faray wasiirka cusub inuu si degdeg ah xilka ula wareego isla markaana uu laba jibaar dadaalka ku aadan shaqada looga igmaday sidoo kale waxa uu ka codsaday hay'adaha kale ee maamulka iyo kuwa ammaanka inay la shaqeeyaan wasiir Xasan Cabduqaadir Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo firfircoon wasiirka cusub ayaa bedelaya Allah u naxariistay Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur oo ah wasiirkii cadaaladda ee Koonfur Galbeed kaasi oo 13 July ee sanadkan lagu dilay qarax miino isaga iyo wiil uu dhalay xilli ay ka soo baxeen masjid ku yaala gudaha magaalada Baydhabo Koonfur Galbeed ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay soo qabashada laba ka mid ah kooxihii ee ka soo qorsheeyay qaraxa lagu dilay wasiirkaasi waxaana la toogtay ninkii fuliyay qaraxa halka wiil la dhashay oo maqara ah isna lagu xukumay dil toogasho ah waxaana dhinaca kale 15 sano oo xabsi ciidan ah lagu riday gabar ee kala shaqeysay diyaarinta qaraxyadaasi si kastaba Koonfur Galbeed ayaa haatan wajahaysa xaalado isbiirsaday sida xiisad ee ka dhalatay muddo kororsiga Laftigareen abaaro iyo sidoo kale dagaalo kalena kooxda Al-Shabaab daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato muuqaalka like dhaado oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada mar waliba daawade waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan anagoo markaasi ku baahinaa halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa